isagoo aan dadka isku diraynin laakiin dadka u naseexaynaya ayaa markii dambe wuxuu la hadlay ninkan xajaaj uu yeedhay la yidhaa cabdiraxmaan ibnu ashcaf markaasaa wuxuu yidhi wareedha markii aan la joogay ninkani sidaa adag buu kuu xantay wuu kugu soo maqan yahay ogow ninkaasi xajaaj la yidhaahda wuu ku qaniinsan yahay oo wiila kaa xantay markaa wuu naseexaynayaa cidlayuu ka helin buu isleeyahy isagii ibnul ashcafna wuu hadloo wuxuu yidhi wa ana wallaahi la ajhadanna an uziilah can sultaanihi in taala bii albaqaa walle anna waan dhaartaye haddii cimrigaygu sii jiro meesha waan ka dhaqaajin doonaa waa isu dhaarsanay isagu misaasuu igu yidhi anaaba riman buu aniga laftayda ayaa riman mar waan ku quusan doonaa buu waa laba ninoo isu shaqaynayo haddana hoosta isaga hanjabaya marka horeba sheekadooda caynkaasi ahay oo kibir baa la iskala horyimi ibnu ashcaf colkii buu hoggaamiyey xaggaa iyo dhulkaa aynu sheegayno ee sindi iyo binjaab iyo dhulkaa shishe afghanistaan iyo iiraan iyo baakistaan iyo dhulkaa ayuu u kaxeeyey colkii ilaa hindiya wuxuu furay magaalooyin badan tan markuu xoreeyo tukaluu xoreeya gaaladii baa guura uu addoonsaday khadiyaan bay ka joogsadeen dhul dhan buu sii xoreeyo aad u fara badan markii uu fogaaday ayaa wuxuu la hadlay colkiioo waxa uu yidhi sannadkan soo socda col fara badan baa la socda waynu nasanaynaa dagaalkana waynu yara joojinaynaa colkuna wuu xoogaysanayaa magaalooyinkan aynu xoraynayna dee maamul baynu u samaynaynaa waynu nadaaminaynaa farsamuu wataa markaa xajaaj binu yuusuf baa maqlay ninkii colkii wuu joojiyey colkii uu gaalada isna wuxuuba lahaa ha ku dhinto balaayadu oo halkaa ha kaaga dhinto colkii wuu joojiyey baa lagu yidhi waraaq adag buu soo qoray uu ku caayayo ku canaananayo oo uu leeyahy waan maqlay inaad colkii joojisood igu madaxaragtay dagaalka sii wad isna markaasuu halkaa ku joojiyoo waabuu fallaagoobay caasinimuu bilaabay colkiina wuu ururiyey uu la socdayoo wuxuu idhi waryaadhaheen ninkii caynkaasuu ina leeyahy ummaddaa dhulkaasuun sii dhex galo halkaa ku madha buu leeyahay dee maxay idinla tahay ninka anigu kama amar qaadanaya ma igu raacsantii kama amar qaadanayno annaguna xajaaj waannu naqaanaa waxa istaagay ninkan la yidhaahdo cabduraxmaan aabbihii oo muxamed ibnu ashcaf la yidhaahdaaba colka la socda kan qaa'idu jeeshka ah ee xajaaj dagaalami doonaa aabbihii baa meesha maraya odaygiina wuxuu ahaa oday khatiiba oo mufawaha oo balaayo ah ilaa waxaa layaa masku masunbuu dhalaa abeesaduna abeesunbay dhashaa ninkanba kulaylkan odaygaa ku dhaloo meesha maraya waa gabayaa xajaaj buu gabay u turiyaa oo uu ku hurgufaa oo inankiisu u hiilinaya odaygii baa isna meeshii ka hadlayoo markii la caasigaroobay wuxuu idhi ninkaa la yidhaahda xajaaj wuxuu ka dhigan yahay sidii ninkii hadlayee yidhi ixmil cabdaka cala alfaras fa in halaka halaka wa in najaa falaka waa sidii mahmahadii carbeede odhanaysay addoonkaaga faraska ku eriyoo hadduu dhintana wuu ku dhaafay hadduu noolaadana aduu ku shaqayso sidaasuu ka dhigan yahi wuxuu doonayaa haddii aynu halaagnana haddaynu halaagsannana inuu inaga nasto haddaynu guulaysannana guusheenna inuu isagu sheegto owdhaa dhulka anaa xoreeyey sidaasaa uu arrinkii u waday markaa waxay isla garteen in la caasiyo ninkii la odhan jiray xajaaj saacaddaa laga bilaabo ninkii gobolkan ciraaq haystay ama dhulkaa ciraaq iyo ilaa iiraan ee cabdulmalik ibnu marwaan madaxweynaha wakiilka uga ahaa kama amar qaadanna bay dhahan laynaguma hadleeyo ikhlacuu caduw allaahi alxajaaj wa baayicuu liamiirikum cabdiraxmaan ibni ashcaf sidaasaa markaa lagu dhawaaqo waxa lay saacaddaa laga bilaabo ninkan baynu heshiis la gallay ninkanaa madaxinoo ah iska tuura xajaaj ma tuurteen tuurnaydaa lay xajaaj colkii faraha badnaa oo 150 kun ku dhow
150,000 oo ciidana taasaa la isla qaatay dadkuna xajaajkani nin dhib badan oo shariira buu ahaayo waxa u sahlay inay saacidaan ninkan xajaaj bala nacay laakiin xajaaj tuurnay un baa la yidhi lama soo qaadin markaa madaxweynihii muslimiinta xukumayay cabdulmalik in isaga lagu caasi garoobay taa la islama soo qaadin ee waa laga aamusay ninkii isaga ahaa marka wuxuu yidhi kol haddaynu ninkii ku caasi garoowni xajaaj wayna soo dabagelaya wuu inagu soo duulaya dagaalkii gaalada halkaa inaga joojiya isagii aan u jeesanna haddaba xaggiisii baynu noqonaynaaye iyo ciraaq baynu dib ugu noqonaynaaye laakiin dee ninkii hore uma sii socon karno horta aan iska xorayno sidii baa markaa lagu heshiiyo colkii dib buu soo ruqaansaday intuu xaggii gaalada laga soo noqday ayaa xaggii dambe loo soo ruqaansaday ee basre iyo baqhdaad iyo kuufa iyo dhulkii baa dib lagu soo noqday markay ku soo dhowaadeen dhulkaa aynu sheegayna imika xajaajna ku noolyahay ayaa la wada hadlo waxaa la yidhi waar dee ninkan ninbaa u madax cabdulmalik la yidhaa meesha madaxweyne ka ah ninkanaana inagu hayo inoo keenay miyay suuragal tahay dee bakhtigiiyo fuudkiisa inaynu kala qaadno oo idhaahno bakhtiguna waa xaaraan fuudkiisuna waa xalaal ma kala qaadi karayne kabiyo waxeeda waa la isla tuuraaye haddaynu xajaaj tuurnay kaw madaxda ee cabdulmalikna tuura ku caasi garooba ma sidaasaynu yeelna waa la isla qayliyey waanu idinku raacsanahay baa layidhi baycadii baa haddana loo jadiidiyey mar labaadoo meeshaba adaa ka madaxweyneha baa layidhi cabdiraxmaanow ina ashcafow adaa meesha ka cabdulmaliga oo ka xajaaja oo ka madaxweyne ah waa ku kaa markaa fabaayacuuhu calaa kitaabi illaahi wa sunnati rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam wa khalci a'immati dalaalati wa jihaadi almulxidiin kitaabka ilaahay baanu kugula bayco kugula gallay sunnada rasuulkaanu kugula gallay iyo inaynu la dagaalanno madaxda hallowga iyo halaagga ee ummadda halaagaya arrintu markii hore xajaaj bay taagnayd xajaaj markuu warkii maqlay ilaa mar walba warkii baa la kala qaadanayaae wuxuu u diray fariin madaxweynihii muslimiinta ee markaa cabdulmalik ayuu fariin u diray markaa wuxuu yidhi arrinka halkaasuu maraya aniga ay taagnayd laakiin aday ku soo gaadhay hadda adaa lagu soo gaadhay adigiina waa lagu tuuray waa lagugu caasi garoobay dowlad baa meeshii laga dhisay dee la soco fanzacaja alkhaliifatu wahtamma marka ninkii cabdilmalik la odhan jiray way ku ciirtay talaa ku ciirtay markii la yidhi ummaddii halkaa joogtee faraha badnayd oo culimo leh oo quraa'a leh oo cid walba leh waa laga caasi garooba adig iyo xajaajba waa la tuuray arrinkii waa ku adkaaday wasaca annaasixuuna almuslixuuna fii dar'i alfitna cid waloo dhaqdhaqaaqi karaysayba waxay markaa u dhaqdhaqaaqday in fitnada la damiyo oo dee waa la garanayaa ibnu ashcafna waa nin dagaalyahana xajaajna waa dagaalyahan dadka la socdana waa muslimiintii oo xulkii ahoo qiimo badan baa la kala socda waxay isku dilayaan inuu muslimkii yahay baa maaragtay la garanayaa horena muslim isdila waa loo soo maray wakhtigii cali iyo mucaawiya radia allaahu canhuma dhibka ka dhacay baa la garanayaa marka cid waliba way suxulduubtayoo way oroday bal si dagaalkaa loo joojiyo laakiin waxaa la yidhaahdaa miidaame dhagama leh hadduu malag dhawaaqaayo